waxaan adagu hawada idin soo marinayaa salaan sheekha iyo dhammaan Soomaali channel waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo xaaskaygu waxay jeceshahay inaan sariirta waqti dheer la joogo anoo daalan ayaan imaadaa marar qaar ayaan ku dhahaa dhakhtar ayaa dawo ii soo qoray oo yiri bil haw dhawaan xaaskaaga marka ma dulmi baan ku sameeyay gabadhaas saaga wala yaabkaan sheegay maanta wala yaabkaan sheegay su'aalaagu maanta caadi ma alxamdulillah طبعا تكاليف الشرعي هي حقوقه وانت لا awoodo ولذلك حقوق qoyska markuu quraanku ka hadlayay إلهي وحده والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها نفط وحين أود دوشة لك مسار نفقات كمرك اللي قال لينا واكل يري لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله إنه البين تأوده تكاليف حقوق بني آدم كيسكبه داية حقوق الرب وإنت اللي أوده صدرت أن كان اللي قملها وحوسا أودين لقملها كان هذا قف شقيا الصبح كان له هبين صادع هديوية طبعا سوى الدال لو إيمانية أنا وقت هرو كله هي قفت الدمر كاهيد ينا حق يسوي واجبكم معها waxaan waajib ku ahayn wixii uu kaga warwareegay haduu dib ka weyn ka cabsadana reerku ninkii xaaskiisu inay been isu sheegaan waa la ogol yahay hal qaacide leedahay beenta banaan ay isu sheegayaan in xaq lagu lahaa aadan ku duudsiyeenin xaq aadan lahayn aadan ku doonaynin baa la rabaa hawaantu ninkeeda si aan wuxuu jirin way u sheegi kartaa way banaanta ninkuna xaaskiisa sidoo kale way laakiin shardi حق lagu lahaa inaadan duudsiyeenin xaqaadan lahayn aadan ku doonaynin inta hadii la helo reerka jiritaankiisa la ilaaliyaa ka mudan erayo xiisad iyo xaalad lagu dajinayo ama marxalad lagu dhaafayo kale inta waa fahantaan maleynaya mar hadii ay tahay qofkii waajib aynan ku ahayn wixii uu kaga meermeeri kara way fiican tahay laakiin de bil way dheertahay waqtiyo dheer yuusan ka dhigin mid baa macquul ah ka dhigo ninkii xaaska ka dhaartay baa 3 bilood la siiyay Soomaaliya 4 bilood lilladina yuluna min nisaahim tarabbusu 4 ashhur 4 bilood ka badanna lama ogola waxay yiraahdaan 4 bilood ka badan maxaa loo diiday qaacida xisaab bay ku fadhiisiyeen waxay dhahay ninka 4 baa u banaan isku celceli safartii bilood bil buu la joogaa 4 bilood hadduu qadiyo dee 4tii 3 markay ahayd afraad inay heshay ahayd haddii loo xariiq dheerayo 4tii dhammaatay ka hor ka badan lama ogola hawaantuna ninka 4 bay ka sabri kartaa xafsa waa kay ku lahayd Umar radiyallahu anhu markii uu weydiiyay ciidamada furinta dagaalka aan ku dirayno ee halka dhufay iskaga jiray intee ka sabri kartaa kadib uu bilaabay barnaamijka ragga 4 bilood ninkii gaarman la soo fasaxo suu reerka ugu yimaado marka waan rajeenayaa wixii bil iyo aanay ahayd laakiin bil lafteeda way badan tahay inuu ka yareeyaan u soo jeedin laha waan bil munaasaba Abdirazaaq oo sheekada waxay xasuusay sheeko kale hadal lagu xasuustaa nin baa la iga sheegay sidan oo kale ay qabsatay kadib waxaan sameeyay xogay markaan joogaba tabliiq waan u bixin baan dhahaa wiir tabliiq baan raacay markaasan magaalada dhinaca meel alberga yar iyo masaajid yar iska seexdaa soo soo yarnasta wabillahi tawfiiq jazakallahu khayr marka ninka laftiisa tabliiq waa muhiim buu yahay